السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan waa anigu Cabdinaasir Cabdikariin Jino oo ku magac dheer Cabdinaasir KSA. meel walba aad joogto waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabto mar walbana aad hesho sabab aad u dhoola cadeyso. mar kale iyo qiso waa aniga ninkii ku dhacday waa aniga. maalmahan ka mid ah ayaan waxaan jeclaystay inaan aado Djibouti. cidna kama aqaano, cidna oo Allah ahayn kor igala socdo. maalmahan ka mid ah ayaan baxay Hargeysaan tagay. Hargeysa waxaan ku bartay ilaa baabuurka marka la raaca dada lagu barnaa. family socdaan ayaa lagu daray aan bartay meesha ku bartay. maqaayada isla galnay, waa isla qadeynay, galabta isla joognay, habeenkii hotel isla jiifanay, maalinta dambe waa isla soo raacnay baabuur oo ilaa Djibouti oo ku geenaya ilaa xuduudda Looyacado. markaas oo wada raacnay oo xuduudda ay imaanay Looyacado imaanay. tahriib waa marribiin aan wadeen sidaas aan ugu geliyay. marribiinta xitaa qaar ka mid ah wayna qiyaameen. meel waxaana la geeyay oo Djibouti ahayn, waxaana la inta Djibouti waa lacagna waana la qaatay. lacagta ma xasuusto faran wala cadadeedana ma xasuusto, waan hilmaamay. lacagteen dhiibnay subaxdii waaga ma koo bariyay meelaan la geeyay. waxaana la maanta inta gal habeenkan inta jiifta bari subaxdii inta ka bax Djibouti waa joogtay. subaxdii waaga doo bari wax joog male ilaa dad tuugo oo noo heshiiyay waaye. qof kale ayay la balameen oo meesha nin kale noo imaan subaxdii wuxuu dhahay meesha ay joogtiin Djibouti ma dhawo halaas lacag dhiibeysan. markaas lacagtii aan ogolaanay oo inay dhiibno mid kale. lacagtii aan la soo qaaday waxaan la keenay Djibouti markaas soo galnay lugleen ugu soo galiyay. markay Djibouti soo galnay oo magaalada oo la soo galay, dadkan isla socon waxay ahaayeen family, waxay ahaayeen maamo weyn iyo gabar oo roon anigoo kale iyo laba wiil oo dhalinyaro iyo oday oo nin weyn isla socdeen. dabcan waa inay is dhaleen, waa inay ilma adeer dad is dhasheen ahaayeen alaamo. markay meesha dhacday sidaas oo la soo galay ayaga mid ka mid ah nina is yaqaaniin la hadleen. waxaa la dhahay meel hebel aan joognaa. dada wax weydiin meesha hebel waa nala xaafad meesha magaalada meel maqaayad ay joognaa la sheegay. ninkii wuxuu dhahay meesha idinku imaanayso. intuu sidaas dhina waxaa la yaali la socdo waxay dhahay wiil aan nala socdo. waxaa la wiilku u sheegay meesha ku haro ay isdabaracma. adiga imaado wuxuu dhahay khalaas waaye aniga waan wala soo socda adiga ina isdabarto waaye. ana isdabarto waaga i bari. waxaan dhahay meesha ana qofka ma aqaan asiga anigoo kale asba qof loo oo dulsaar oo ku noqon raba. waxaan dhahay okay dhib malahan maqaayadii aad tagay meesha inta quraacnin quraacda xitaa ma ugu socoto oo fikiroob intay ka bilaabi horta meel aad ma baqaan inta iga jirta wareera gale. ninkii imaaday odagii markuu imaaday salaamnay wuxuu dhahay wiilkayga hadii inta iskaga har magaalka Djibouti inta joogtaa dhinacaan Soomaaliya Soomaaliya in joogaan adiga walxo i tiri dhib malahan dhahay. markuu dhaqaaqay waa ciishooday. waxaa soo xasuus inuu qabiilka maxay ilaa way qabiil ahaan hadda ligaaga wata dadkaas nin isku lafiina imaad isku qabiil yihiin ee israaceen oo wada. mar waxaan ogaaday inuu qabiilka maxay marna waxaan ogaaday inuu qabiilku jahli yahay waayo Soomaalinimadii dhan ayuu ka tagay ninkan oo micnaa maxaa dhihi jiray laf jeclays ayuu dadkaas iga wata aniga meesha iga dhaqaa. way isiimas inaan meesha taagnaad aniga keligeyga oo meel ah ka bilaabo ma aqaano lacag ma haysto. markaas waxaan dhahay inaan ka daba ordaa. waxaan dhahay xitaa 2 maalin aan guriga ay joogo si aan micnaha magaalka u fahmo. kadib anab isdabaraan horta awal shii waxa u baahan tahay in aad 2 maalin ama 1 maalin aad guriga joogtid si micnaha magaalka u fahamtid. odayga way ogolaaday meel loo dhahay soo bax guriga tagay. guriga qabeystay waa sabi maaladii markaa tagayna subax salaada tagna meelaan la jiifiyo oo joorada adi hool oo weyn oo kale saliyaan oo dhigay xitaa katiifa mal leeyahay maahan katiifaan oo dhigay katiifadii ku jiifanay. duhurkii camal waa la soo kacay masaajidka aadna waa soo tukanay. aniga marka waxay u barmid garaasin meesha wax ka bilaab lahay waa fikiray nirag waa kii fikiraa waxa ku fikiray sidaan gurigan ku joog lahaa ku fikiray. waa fiiriyay waxaan arkay odayga maasha Allah odayga waxa waa oday ahlu salaad masaajidka salaad subax masaajidku aad habeenku baxa salaada sunnadiisa ka muuqda. odayga maasha Allah ahlu salaad oo ahay oo guri iska lahay oo dheer micnaha iska har. waxa ku ansay odaygan soo jiidan la anigana horta waxa salaada marka la gaaro labada bari aad joogay
adoo hurdays maarta oo ilkaha aadan rumaysanin ah waxaa la keenaa canjeero shaah iyo saliid ah. ifkan waxa uu nacbanahay anoo rumaysan canjeero shaah iyo saliid liisoo hordhigo. naagta guursada waa kuu sheega intaba canjeero shaah iyo saliid ay siin. alxamuum markay sas eed waa arkay odagana misal cunno oo duqe gabadhii iyo habartii ilaan guri waxaa lagu daray dumarkaa lagu daray qaybta naagaha lagu daray. anaga dhalinyarteena labadaas oo odagaas weynka ee dhalinyarta ah iyo labadaas wiil dhalinyarta iyo aniga afarteenan intaa jiifanaa. odagana gurigiisa oo ka tirsan yahay bas laakiinse waqti uu noo imaada duurka uuna soo salaama. waa fikri guriga cidda marka cid maasha allah ahlu salaad ee waa oo aqwaan ee waa salaada maasha allah ku odagaan akhriyay waxaa ogaada odaga inuu wadaad yahay waa fahmay. marka system waxaa rabaa marka guriga aan kula waa la wareegi lahay oo odayga meesha laga jeclaan lahay ilaa aniga meesha waxaa ku imaada beri mas laba beri inaa joogo sooma. waxaan sameeyey salaad subixi masaajidka ab oday ugu hormaro. salaad subixi masaajid safka hor aan ugu tukanay allahu akbar. oday masaajidka ugu hormaro soo baxay masaajidka soo baxay dadkaana isla quraacana qadadiyo kale adoo ogtahay nin oo cid kamid ah nin oo musaafir le iyo qadada la siinaa way kala duwan yihiin. qado meesha iyo xaalaga nolol keenaa oday gurigana qado heer saro ku cunaa. duurkii oo kale ani weli waxaa sameynaya markii oo masaajidka salaad subax kusoo tago guriga markaa quraac canjeesa isliid waa baxa guriga. dhalinyartaana gurigay joogaan meelaha fafadhiyaan jirjimada ani guriga dhanaan ka baxa magaalka wareega inaa iska aado waqti qadada markii la gaaraa imaana masaajidkaas oo tukana qadada imaana waa qadayna. markaa qaday adan guriga waa ka tagaa wareegaas filina iska gal jira filina aada maqribka casirka oo kale masaajidka ku tukana wareega iska aada maqribka oo kale masaajidka ku tukana kadib le guriga imaan jira. haddana salaad subax haddana waqti markii la gaar shanta waqti salaad masaajidka odayga le daba kacay masaajidka kusoo tukana oday woob iga helabo ilaa waxaa noqday nin oo masaajidka ugu horeeyo oo guriga systemkiisa ilaaliyo oo guriga dhex joogin oo waqtiga marka la gaaro kale oo iska baxay wareeg aaday soo noqona. wuxuu wiilkayga maasha allah tahay ahlu salaada tahay had kadib ani adiga isku cuntaan miis weyn aan nolol ani asiga odayga waxaa noqday inaa ku cunto noqdo meeshii awal liidhahay laba bar kadib waa bixi. wax walba waa qadarta alle nasiibkayga arag kamaan waxaa ku gaaray dadaalkayga. waxaan arkay odayga iyo guriga systemkiisa ogaaday maxaan sameeyey systemka guriga oo la rabin micnaha inuu qof dhalinyaro ragga u dhex joogeen. markaa quraacda aniga subaxdii wareega iska aaday duhurkii qadada la imaanaya qadadii haddana waa baxa wareega aadaa casirkii ma soo noqonaya masaajidka ku tukanaa duurkayga galaa maqribkii imaana waa casheena. maqribka xitaa maqribka isla marka horaa laga casheyn jiray markaa tukado waa casheena banaanka iska aadaa habeenkii 4 saac camal jiif la imaana. marka odayga ogaal wuxuu dhahay maasha allah kadib ani adiga isku sufradaanaan heer waxaa gaar canjeeradii shaah saliidii ka weynaad waa ka barmoose canjeero iyo maraq qadada bariis haweysan baasto hilib moos kaal iska arag heerkaas ku gaarmaano sidaas micnaha maxaan ku kasbaday odayga ilaahay micnaha ani adiga micnaha oo gurigan lagu keenay inaa lagu bari misal bari aa joogo oo micnaha markaa fahma isdabaro heer gaar dadkii asiga oo iga jeclaysay micnaha inaa aniga ka fadli badnaado oo iga jeclaysay taasna maxaa sababay salaada iyo qiimeynta aadamiga micnaha oo qofka meeshu kaa joogo aad fiirinaysa.